السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابت waxaa idin soo bandhigi rabaa asalaato macaan badan oo asalaatada aad taqiineen aan ahayn ka gedisan laakiin dadka qaar ay yaqaano asalaatadaas aan idin soo bandhigi rabaa. Asalaatadaas waxay ka kooban tahay basal, geedkaas oo beetroot, iyo karooto iyo tufaax iyo kaas geedkan kala kabsar caleen oo igya laakiin kabsar caleen ma ahan. geed kaleeto waxa way asagana oo kabsar caleen camal ah laakiin ma ahan kabsar caleen. baqduunis inta lagu yiraahdaa Soomaali ma ku arkin. intaas muxuu ahaayay waxa ka sameeyay rabnaa asalaato macaan badan oo kaale arag ah oo fitamiin ah oo qof kastana oo ay cuni karto oo waayeelada u roon. geedkaas hadda beetrootka fiiqaya beetrootka waa kaas aan fiiqay hadda beetrootka markii aan fiiqo muxuu hay'ateen beetrootka jarjara fiiqida ku wada hadda beetrootki markii aan fiiqo oo haddana waxa lagu hoolayaa baasha lagu hoolo karootada baasha lagu hoolo wili hadda beetrootka fiiqadiisa aan ku wadaa qashinka waa iska bixiyay haye geedkii soo qaatay oo lagu hoolay karootada waa kana sidaan u hoolaya sidaas u hoolo marka waxaan rabaa asalaato macaan badan oo maasha Allah oo adii aad dhimisiin ay iga soo ducay doontiin baroobeey waa yaala dalki waa yaala intaan hadda dalki waa laga helaa meel kastana waa laga helaa oo meel kala ah wadankana waa laga helaa hadda intaan wax weyn ma aha wax qaali ahna ma aha. marka beetrootka waa hoolay baaquligaas yaraa ku shubtay haddana waxaa soo qaadaa karootadii waa taas iyadana madaxa ka jaray. sidoo marka hore qudaarta waa iska dhaqaa si fiican u soo dhaqay marka u horeysay qudaarta intaan jarjarin qudaarta si fiican u soo dhaqay kadib muxuu ahaayeeteen ku bilaabay diyaarinteeda. hadda waa kaas karootada aan hoolayo karootadaas hoolid ku wadaa markii karootada aan hoolo oo haddana muxuu ahaay sida tiyo kaleeto sida beetrootka oo kaleeto iyadana haddana sida ugu hoolayo geedkaas beertaas ku hoolaa karootada marka haye karootada waa dhameeyay haye beetrootkana saxanka baaquligaas ku soo shubtay karootada baaquliyana haddana ku gurinaa iyadana inaan isku daraa raba haddii alla idmo waa kaas waa isku daray beetrootka iyo karootada waa isku daray. hadda waxaa jarjarinayaa basal basashaas jarjarinayaa waxa dhadhan inay noqotaa rabaa
dhadhankeedana maasha allah waaye. Inta aan dhadhamiye idinkana waa baroobay kartiin. Basasaan waa loo jarjari karaa haddii la rabana geedka oo hadda qudaarta kale aan ku hoolaya lagu hooli karaa. Xoogaa yaraa ku hoolay marka waa iga biyooday. Hadda tii iyo labadiiba waa isugu daray, labada basalood tii la jarjaray iyo tii la hoolay labadaba waa ku daray, waa isku daray. Waa kana markii kale la hoolaye waa kaasa qaybta ka yareedna waa ku soo darayaa iyadana. qaybta kale waa taas aan ku daray. marka intaas markaa isku daray weli waxaa noo dhiman tufaaxiyaa noo dhiman. tufaax inaan ku daro rabaa. tufaaxiyaa weli noo dhiman iyo wixii kaloo lagu dardarayo dhadhanka u yeelayay kaleeto. dhadhan waaba leeyihiin kuwa hataa. markaana tufaaxiyaa jarjaraynaa. tufaaxa waxaa waaye minerals badan iyo fitamiino badan aa ku jiraan. muxuu ahaay wax kasta uu roon yahay waa fitamiin. marka qudaartan kulligeed waa muxuu ahaay wax fitamiin ah waaye oo qofka wax u tiraaya oo caloosha kuu jilcinaya. qudaartan calooshay kuu jilcinaysaa, waa fitamiin. hadda muxuu ahaay tufaaxi sidaasa usoo yaryarayna. yaryariisaa laga soo waxaa la rabaa qudaarta inay isku darantaa la rabaa oo muxuu la isku walaaqo. hadda muxuu ahaay haddana tufaaxi halkaasaa ku daray, kuwi kalaa ku daray. hadda markaan haddana liin dhanaantiyaa jaraynana. liin dhanaanta hal jeexa u baahana. liinta ilan waa weynta tu weyn waaye, mid weyn waaye. waxaa u baahannahay hal jab aa u baahana. mid jabka liinta waa noo miiray. jabka muxuu ahaay waxaa u baahannahay saliidda oliibo. haddaa rabto saliid macsaro xataa waa ku darsan kartaa, laakiin hadda aniga oliibaa ku daraynaa. macsaraa lagu dari karaa. hadda waa kaas waxaa u baahan filfil yar, filfil madow. waxyaroo filfil madow iyo oliibada aa isku darnay. waxyaroo cusbaana waa ku darnay. kulligoodna waa isku walaaqaynaa. liinti, oliibadi, filfishi waa isku darnay. waxyaroo haddana waxaa ku daraynaa geedkaas nooc min alqal waaye. geedkaasa xoogaa yar iga darnay. waa isku walaaqnay. markaa isku walaaqno si fiican ay isku dhex galaan aa muxuu ahaayeeteen qudaarteena ku daranaynaa. qudaarteena hadda ku daranay si fiican aan isugu qasaynaa. si fiican isku gaarsiinaynaa. marka asalaatadeena sidaasayba diyaar ku tahay. waxyaroo cagaar ahaa ku darsanaynaa oo geedkii oo muxuu ahaaye kabsarta camal ahay kiyaan ku daranaynaa. qudaarteena saasayba asalaatadeena ee diyaar ku tahay. asxaabta hala soo baroobay geedkaas hala tijaabiyo.
aniga geedka sadoo ila macaanaatay aad ayaa anga helay ilmahana sidoo kaleeto inta dhadhamisoo dhan maasha Allah waaya dheheen asxaabta geedka muxuu ahaa qudaartaas hala soo baroobeeyo insha Allah nabadgelyo iyo nooli kulante asxaabta kii habeen u tahay kii maalin u tahay mar walba jaaw